amaba tobanka magaalo ee ugu weyn dunida ama ugu baaxadda weyn leh hadday noqoto dadka iyo hadday noqoto sayska ama cabirka ay ku fadhiyaan labadaba. haddaba wax ka baro oo wax ka ogow tobanka magaalo ee ugu waaweyn dunida isla markaana ugu dadka badan leh dunida. caasimadda tobnaad ee ugu dadka badan leh dunida waxaa la yidhaahdaa Shanghai, waxaana ku taallaa waddanka China. Shanghai waa magaalada labaad ee waddanka China amaba waa caasimadda labaad, waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 17,900,000 oo qof. waxay ku fadhidaa dhul baaxaddiisu uu dhan yahay 6,340 kilomitir square, waana caasimadda labaad ee waddanka. caasimadda sagaalaad ee ugu dadka badan leh dunida waa magaalada Los Angeles. magaalada Los Angeles waxaa ku nool 18 milyan oo qof, isla markaana waa magaalada saddexaad ee waddanka Mareykanka ama waa caasimadda saddexaad marka laga yimaado New York iyo Chicago. magaalada Los Angeles waxay ku fadhidaa dhul baaxaddiisu dhan yahay 3,944 kilomitir oo square ah. magaalada sideedaad ee ugu dadka badan leh dunida uguna cidhiidhisan waa magaalada Manila. Manila waa caasimadda waddanka Philippines, waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 19 milyan oo qof. caasimadda waddanka Philippines ee Manila waxay ku fadhidaa dhul baaxaddiisu ama dhul cabirkiisu dhan yahay 2,791 kilomitir oo square ah. caasimadda toddobaad ee ugu dadka badan leh dunida uguna weyn waa caasimadda waddanka Brazil ee Sao Paulo. Sao Paulo waxaa ku nool 20,900,000 oo qof, waana caasimadda waddanka Brazil. magaalada Sao Paulo dhulka ay ku fadhida cabirkiisu waa 1,521 kilomitir oo square ah. magaalada Sao Paulo waxaa la aasaasay 1554. magaalada lixaad ee ugu dadka badan leh dunida waa caasimadda labaad ee waddanka Mareykanka, New York. New York waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 21,900,000 oo qof. New York waxay ku fadhidaa dhul cabirkiisu dhan yahay 798 kilomitir oo keliya. halkaa waxaad ka arkaysaa in dadka iyo magaaladu ay kala badan yihiin, isla markaana magaaladu ay aad u ciriiri tahay, waxaana la aasaasay magaalada 1624. magaalada shanaad ee ugu dadka badan leh dunida waa Bombay, waana caasimadda labaad ee waddanka Hindiya. magaalada Bombay waxaa ku nool 22,200,000 oo qof. magaalada Bombay waxaa la aasaasay amaba la sameeyey 1853, waxaana ku fadhidaa dhul uu cabirkiisu dhan yahay 603.4 kilomitir oo square ah, waana magaalada labaad ee waddanka Hindiya. magaalada afraad ee ugu dadka badan leh dunida uguna weyn waxa weeye caasimadda waddanka Hindiya, New Delhi. New Delhi waxaa ku nool ama ku dhaqan dad lagu qiyaasay 22,600,000 oo qof, waxaana ku fadhidaa dhul cabirkiisu dhan yahay 427 kilomitir oo square ah, waxaana la aasaasay 1956. waa magaalo ka mid ah magaalooyinkii ugu dambeeyey waddanka Hindiya. magaalada saddexaad ee ugu dadka badan leh dunida waa magaalada Mexico ee ku taalla waddanka Mexico amaba caasimadda waddanka Mexico. waxaa ku nool 22,800,000 oo qof. magaalada Mexico ee caasimadda waddanka Mexico waxaa la aasaasay 1824. dhulka ama cabirka ay ku fadhida magaaladaasi waa 127.5 kilomitir oo square ah. caasimadda labaad ee dunida ugu dadka badan leh waa magaalada Seoul, caasimadda waddanka South Korea ama Koonfur Korea, waxaana ku nool 23,800,000 oo qof. magaalada Seoul waxaa la aasaasay 1801, waxaana ku fadhidaa dhul cabirkiisu dhan yahay 605.2 kilomitir oo square ah. waa caasimadda waddanka South Korea.
caasimadda koowaad ee dunida ugu dadka badan leh uguna ciriirisan waa caasimadda waddanka Japan, Tokyo. Tokyo waa caasimadda waddanka Japan waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 330 milyan iyo 800 oo kun oo qof waxaana ku fadhidaa dhul uu cabirkiisu dhan yahay 1457 kilomitir oo square ah.